madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo dib ugu soo laabtay magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland kadib safar uu ku tagay Baydhabo oo uu kaga qayb galay shirkii madasha madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee General Maxamed Abshir madaxweynaha ayaa si adag uga hadlay dagaalka u dhaxeeya ciidamada difaaca Puntland iyo kuwa maleeshiyaadka waqooyi galbeed Soomaaliya ee ka socda tukarraq iyo deegaanada ku xeeran madaxweynaha ayaa u hambaliyay ciidamada difaaca Puntland ee naftooda u horaya difaaca dalka waxaana uu dhinaca kale sheegay in dagaalku sii soconayo oo maamulka Somaliland uu guul darro ka dhaxli doono gardarrada qaawan ee uu ku soo qaaday xuduudaha Puntland bisha barakeysan ee Ramadaan isagoo dhinaca kale madaxweynuhu carabka ku adkeeyay in dagaalku sii socon doono shacabka Puntland looga baahan yahay inay ciidamada garab istaagaan waxaan halkaan amriyo uga diro ciidamada xoogga dalka Puntland meel kasta ay joogaanba oo u taagan difaaca dalka ka difaacaya dadka horarka ah oo raba inay dal iyo dhul aysan lahayn ay inta ku soo dulaan oo qabsadaan inay si nabadgelyo ah u joogaan taasina waxaan u sheegay inaysan suurtagal ahayn goosatada kala rabtay in dalka kala goyso Soomaaliya usoo tafaxaydatay inay dhiig Soomaaliyeed ay daadiyaan waqti nabad dalka uu yahay nabad loo joogo dibcilaada hadda aan galay inay dalka inta ku soo duulaan ay dhiig daadiyaan waxa weeye aan u sheegayaa musabbixi iyo dowladdiisa in ay dowladdiisa gobolka in Puntland ay diyaar u tahay dalka inay difaacdo iska celiso cid kasta oo ku soo duusha waxa ku socdaan xaq darro dhul ay salahayn daraba inay xog ku qabsadaan ku haystaan suurtagal ma aha yaasaan u sheegaynaa dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda waxaa ugu baaqaya in ay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda u diyaar garoobaan dagaal dheeraan iyo u diyaar garoobaan in ay sharaf ku noolaadaan ciiso ku noolaadaan meesha uu ka yimid oo garanaysan saddexaad isu ka yimid kana qoranta yimaada inuu ku naaloodo oo nabad ku joogo suurtagal ma aha saasaan u sheegayna marka dadka reer Puntland markasta ay joogaan u diyaar garoobaan difaaca dalkooda ka qayb qaataan difaaca dalkooda dhinaca kale madaxweynaha dowladda Puntland ayaa si faahfaahsan uga hadlay ajendayaashii lagu falanqeeyay shirka golaha midowga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee uu Baydhabo kaga qayb galay isagoo sheegay in shirka diiradda lagu saaray arrimaha siyaasadda dalka ammaanka guud dimuqraadiyiinta iyo geedi socodka nidaamka federaalka waxaana madaxweynuhu sheegay in shirku si guul ah ku soo dhamaaday waxaan ka nidhi shirkii golaha isutaga dowlad goboleedyada ee ka dhacay Baydhabo 13 ilaa iyo 16 bisha laga hadlayay arrimo muhiim u ah dalka arrimo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyiinta iyo federaaleynta Soomaaliya arrimo muhiim u ah dib u haashada qarannimadii iyo dowladnimada Soomaaliyeed runtii waxaan ka soo baxay warburteedkii ah wadadhegeysateen shalay oo arrimo badan ka taabanaya oo siyaasaddu ka mid tahay arrimaha nabadgelyada amnigu ka mid ahaayeen arrimaha bini'aadamnimada iyo humanitarianku ay also ay ka mid ahayd intaasoo dhan ayaa laga hadlay shirkan wuxuu ka soo dhamaaday guul waxaan rajaynayaa in ilaahay jirka dambe lagu gaarsiiyo wanaag iyo horumar madaxweynaha ayaa docda kale bulshada Puntland iyo guud ahaan muslimiinta ugu hambaliyay bisha barakeysan ee Ramadaan isagoo ku baaqay in la iscafiyo lagana faa'iideysto acmaasha suuban ee bisha barakeysan waxaan rabaa inaan meel kasta ummadda Soomaaliyeed joogaan ugu hambaliyeeyo urashada bisha Ramadaan waxaan ka rajaynaynaa inuu bishaas barakeysan uu noogu dambi dhaafo aanu iscafino dhammaanteen iyo imaanshaha caasimadda Puntland ee madaxweynaha dowladda Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Puntland ay guulo waaweyn ka gaareen dagaal bilowday maalintii Talaadada ee asbuucan ka oo khasaare daran lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka gooni goosodka ah ee Hargeysa maxamed xaliye Puntland TV Garowe.